Suldaan Maxamed Suldaan Abduqaadir oo ah suldaanka guud ee beelaha Somaliland oo maanta qaybo ka mid ah warfidiyeennada kula hadlayay hoyga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay dacwad la sheegay in ay qoyska madaxweynaha ay ka gudbiyeen gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID injineer Faysal Cali Waraabe anu waxaan leeyahay madaxweynaha wartartankii haddaad rag ka badisay in deel aad ku tiiqtiiqsato waa foolxumo rag tartankii ka badisay inaad xadhig ugu darto lagama eegay inaad waxba qabataa lagaa sugay waayo doorashada ma iman doonto taasaa faarle cajiiba keeni doontaa dhowto ninku madaxweynaha hadduu kugula tartamay dee waa madaxweyne baad xidhay madaxweyne xidhana lama arag oo dowladihii hore soo maray Somaliland dee raggii madaxweynayaasha ama xidhan raggii mucaaradka markaa ku ahaa waxaan leeyahay أحزابta mucaaradku inay wax tilmaamaan xaq bay u leeyihiin wixii qaldanay markaa xukuumadda talada haysa ay ku dhaliilayaan xaq bay u leeyihiin ay ku cadaynayaan haddii la yidhi qoyska madaxtooyada ka fushay arrintaasi dee waxa weeye nin waliba qoys buu ka dhashay dee qoysna qoys ma xidhi karo laakiin waxaan isku xidhi karnaa wax sharciya waayo mushkiladday sababi doontaa way ka weynaan doontaa intaan lagu soo dooran markii aad mucaaridka ahayd adaaba dadka waxaa ka sheegi jiray qoyska madaxweyne arrinka mucaaridnimadii ku soo martay dadka mucaaridkee wax walba ku hadlaya dee inaad nabadgeliso weeye tartankii haddaad ka badisay od heshay odhan lahaa arrintiisa maadaama ninkii haystay uu sii daayey inay xukuumadduna faraha ka qaado ay soo dayso oo xorriyaddiisa loo celiyo